يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale iyo muuqaal cusub kusoo dhowo bth in badan baad ka warwartaa amba ay markaasi dhibaata kaa qabsataa ilaalinta furaha facebookkaaga haddii aad is leedahay waa lagaa daba xadi ama inta laga daba qaato ayaa facebookkaaga la geli halkaas xogtaada laga ogaan waxaan ku hayaa maanta xalkaasoo ah in adiga mooye cid kale aanay geli karin facebookkaaga xataa haddii lagaa xado baasuurka kusoo dhowo muuqaalka. marka aad moobilkaaga soo gasho inta aynaan furin facebook xorta aynu sharaxno adeegani waxa uu yahay koodh lagugu soo dirayo moobilkaaga ama simikaadhkaaga. koodhkaasoo aad ku xidhan doonto facebook kuna geli doona halkii aad baasuurkaaga gelin jirtay. markastoo aad istiraahdo facebookkaaga gal oo aad baasuurkaaga geliso waxa uu ku weydiin doonaa koodhka uu simikaadhkaaga kuugu soo diray. haddii uu qof kale kaa xado furaha facebookkaagana waxa uu weydiin doonaa koodhka lagu soo diray simikaadhkaaga ilaa aad u fasaxdo ama aad access u siiso inuu galo facebookkaagana ma geli kara isagu. haddaba qaabka loo furanayo iyo qaabka loo isticmaalayo aynu gudagalno aynoo bilow. marka ugu horeysa facebook aynu soo furanaa. facebook marka aad soo furto waxa aad markaasi geli doontaa ama aad taaban doontaa saddexda xariijimood ee koonaha. haddii aad iphone isticmaalaysana hoosta ayay internet taalaa, saddexda xariijimood ee koonaha xigee hoosta ayay taaban doontaa. marka aad taabato kor baad wadi doontaa, halkana waxaad kasii xulan doontaa settings and privacy. marka aad sii xulato settings baad kasii dooran doontaa. settings marka aad doorato halkana waxaad kasii xulan doontaa security and login. marka aad doorato halkan waxaad kasii xulan doontaa use two factor authentication. marka aad doorato halkan waxa uu kuusoo dhigi doonaa u furo two factor authentication. hadda anigu ii furan yahay lambarkayguna igu safe garaysan yahay oo igu xidhan yahay. marka aad doonayso in aad furato ee aad ku xidhato two factor authentication waa inaad marka hore facebookkaaga gelisaa lambarkaaga. sidaad lambarkaaga u gelinaysana waxa weeye marka aad settingka soo gasho halka ugu sarreysa ee personal information ay ku qoran tahay ku dhufo. marka aad ku dhufato halkan waxaa kaaga soo bixi doona xogtii magacaagii, emailkaagii iyo phone numberkaagii. marka halkaa phone number ay ku qoran tahay baad lambarkaaga gelin doontaa waanaad verified garan doontaa. markaasi waad aqbali doontaa oo confirmed baad odhan doontaa si lagu aqoonsado oo lambarkaagu markaasi una kaaga lumin. halka aniga confirmed baa hadda ku qoran, marka waanaad confirm garaysaa oo koodhka kusoo diraad gelin doontaa. markaad intaas samaysay kadib halkan waxaad markaasi awood u yeelanaysaa inaad u furato two factor authentication. markaad u furato hadda anigu ii furan yahay lambarkayguna igu xidhan yahay, sms ayaa markaa igu xidhan oo koodhka wuxuu kugu soo dirayaa fariin message kadibna koodhkaas ayaad gelin doontaa. halkan hoose waxaa markaa kugu qoran recovery codes. koodhadhba halkan markaasi kugu jiraya. halka hadda aniga show codes baa halkaa iisoo dhigayaa itus koodhadhka. koodhadhka halkaa kugu jira markaa waxa aad samayn doontaa marka aanad haysanin simikaadhkaaga ama marka aanad moobilkaaga haysanin ee aad ka fog tahay ama aad travel ku jirto ayaad koodhadhka qaadanaysaa. koodhadhkaasaad markaasi ku geli doontaa halkii uu simikaadhka kaaga soo diri lahaa eed soo raadin lahayd. markaasi koodhadhkaasaad safe garaysanaysaa ama meel ku qoranaysaa kadibna waad ku geli doontaa hadhow adoon moobilkaaga haysanin oo cid kale markaasi inay kaa ogaanin. haddii aad moobilkaaga haysatana markasta koodh buu ku weydiinayaa oo aad galis tidhaahdo facebookkaaga. qof kalena haddii galis idhaahdo ilaa aad u ogolaato ma geli karo. hadda kaygan tijaabinayna markaasi oo waan ka log out garaynaya ama kama log out garaynaya ee browser kale ayaan ka geli doonaa. markaasi hadda waxaan eegi doonaa feedmeetkan soo qaban doonaa. feedmeetka markaan soo qabto halkan waxaa markaasi iisoo yaala facebookii oo u baahan ciwaankii furihii inaan geliyo.
hadda markaan halkan geliyo ciwaankii facebookgayga aan ku geli jiray, hadda waxaan gelinayaa ciwaankii aan facebookgayga ku geli jiray, ciwaankii waan geliyey. hadda furihii baan halkan gelin doonaa markaasi. hadda furihii waan geliyey, waa diyaar markaa inaan login idhaahdo. login baan markaa ku dhufanaya si uu u galo. login marka aan ku dhufto, halkan waa adiga arkaya, isla markaaba waxa uu soo dhigayaa two factor authentication required. marka halkan xogta uu ku soo dhigay waxa weeye qof baa galay facebookgaagii ee ka gaar weeye. have you just logged near Hargeysa Soomaaliya, waa adiga arkaya meesha laga galay buu kuu sheegayaa. ama adiga haddii aad adiga tahay, halkaasaad ku dul dhufan doontaa. markaad ku dul dhufato, halkan waa ka saacadii la galay, meeshii laga galay, browserkii laga galay ayuu kusoo dhigayaa. haddii aad adiga tahay yes baad odhanaysaa, haddii aadan adiga hayna no baad odhanaysaa. dabadeedna ma geli kartid, ama qofka gelis yidhi ma geli karo. hadda haddii aan yes idhaahdo, waxa uu access ii siinayaa in markaasi aan hadda uu gelaya, isagaa gelinayaba anigoon markaasi waxba gelin. ilaa aad u ogolaato ma geli karo qof kale. two factor authentication baa markaasi u furan. haddii halkan uusan kuusoo dhigin, iminka intan uu soo saarina, waxa uu kuusoo dirayaa un code buu kugu soo dirayaa mobilkaaga. kadibna koodhkaasaad ku geli doontaa oo halkii facebooka aad gelin doontaa. hadda haddii aan soo saaro koodhadhkii uu iisoo diray markaasi aan ku gelayay, adiga arkaya hadda koodhkii ugu dambeeyey ee uu iisoo dirayay waa ka two factor authentication on Facebook. koodhkaasuu iisoo diraa, kadibna koodhkaasaan facebooka ku galaa oo ii galay halkii aan baasuurka gelin lahaa ayuu ii galay. markasta oo aad istiraado facebookaga galna, waxa uu ku weydiinaya koodhka marka uu ku weydiiyo dabadeed waxa uu ku weydiin doonaa marka xigtid halkan geliso, miyaynu ku weydiinaa koodhka mise waanu skip karaynaa oo waanu ku dhaafinaa haddii uu mobilkaaga yahay. labadaba ka aad doorato ayaad markaasi samayn doontaa oo uu kugu soo saaraya. saasaad samayn doontaa. qof walba oo gal istidhaahda facebookaga ama furaha kaa xadana, waxa uu weydiin doonaa koodhka. haddii uusan koodhka weydiin lafteedana, halkan sare ayuu kaaga soo saaraya markaa digniin oo ku odhanaya hebel baa galay facebookaga, saacadaasuu galay, meeshaasuu ka galay, browserkaasuu ka galay. ama adiga haddii aad haa tidhaahdo, waad u ogolanaysa inuu galo. haddii aad maya tidhaahdana, uu ka saaraya qofka, wuu u diidaya. adiga laftaada haddii aad meel kale ka gasho, uu ku diidaya haddii aanad improve garayn koodhka uu kusoo diray ama su-aasha ku weydiiya aanad ka jawaabin oo aanad yes dooranin. hadda two factor authentication baa kuu furan. markaad halkaa u furato, mar dambe lagama xadi doono baasuurkaaga, oo waxa uu ku weydiinayaa koodhka uu kusoo diray, ama waxa uu halkaa sare kusoo dhigaya in aad access u yeelato inaad gasho yes or no, labada midun. haddii aad no doorato ma gelayo, haddii aad yes dooratona wuu gelaya. saasanaad ku safe garaysan kartaa baasuurkaaga oo aad ku ilaashan kartaa, cidina kaama xadi karto, oo lambarkaaga ayaa kugu xidhan. waxaan rajeynaya inuu adeegani ku caawiyey. haddii aad ka heshay muuqaalka like saar. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. nabaday.